iminka waxaa qadka telefoonka ku jira Abuukar Maxamed Sheekh oo isagu markaasi ah gudoomiyaha kooxda dawladda hoose. Abuukar, barqa wanaagsan ku soo dhaw barnaamijka ciyaaraha kulmiye. waa maadsantahay Suuriya oo ku dhawaad barnaamijka aadana maadsan. inta kadib dadku waxay la socdeen Xuseen Malango oo u dhashay wadanka Uganda oo 5 sanadood oo la soo dhaafay kooxdan hogaaminayay inaad kooxda ka dirteen idinka oo keenay macallin usha wadanka Tunisia. imaanshihiisa iyo sidoo Muqdisho ku yimi qaabkee ayay ku bilaabatay sidaas ku soo arkooteen macallinkan marka hore? bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waa salaamaya baxda kulmiye. marka xigo waa ku faraxsanahay inaan barnaamijkan kala qayb qaato haddii aan faahfaahin yar ka bixiyo macallinka u dhashay dalka Tunisia Maxamed Misiri. waa macallin maaragtay khibrad leh oo wadamo badan kasoo shaqeeyey. xiriir aan wada sameynana waxaan maaragtay go'aansanay maamulka Muqdisho City Club naadiga dawladda hoose in aan maaragtay muddo 1 sano ah aan kooxda u diidno oo noqdo macalinka kooxda koowaad ilaahay raalli ka noqdo. waxaan ku rajaweynahay inuu maaragtay shaqadiisa kasoo bixi doono insha Allah. marka laga hadlayo macallin inuu wadanka yimaado waxa laga yaabaa taageerayaashu inaysan ka haysanin macluumaad ama faahfaahin la xiriirta macallinkaas oo dhammaystiran. adigu oo ah gudoomiyihii kooxda oo wada xaajoodka la galay una u soo gudbiyay CV-giisa, maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda macallinka? wallahi taariikhda macallinka oo kooban haddii aan wax yar ka sheego, macallinkan waa macallin u dhashay dalka Tunisia. wuxuu kasoo shaqeeyey wadamo badan oo afrikada galbeed ah iyo wadamo carabeed sida Sacuudi Carabiya, Cumaan, Imaaraadka, Liibiya, Tunisia. shaqadii ugu dambeysay wuxuu kasoo qabtay dalka Guinea. haddana waxaa maaragtay macallin ka yahay kooxda Muqdisho City Club. maaragtay waxaan rajeynaynaa in guulo badan aan isla wada qaybsan doono insha Allah. inta badan haddii aad mas-uuliyiinta kooxaha tihiin waad ka warwareegtaan lacagaha macallimiintii ciyaartooyda aad ku soo xirigeliseen. heshiiska macallinkan imise ayuu ku kacayaa Abuukar? runtii heshiiska macallinkan muddadu waa 1 sano, laakiin wixii maaragtay contract ama maaragtay mushaaraadkiisa gadaalan kasoo sheegi doonaa insha Allah. weli wadadii ayaa isku taagantihiin soo maaha? طبعا سؤال waxaa sida adduunka uu dhaqmo waana gaari doonaa insha Allah. mustaqbalka dawladda waxaan rajeynaynaa in aan soo wada bandhigno mushaaraadka ciyaartooyda iyo macallimiinta, laakiin qorsheeda waa ku jirnaa hadda qaabka aan maaragtay aan caalamka ula jaan qaadi lahayn waana ku dadaalaa insha Allah. wayahay waxaa laga yaabaa macallinka inuusan haysanin macluumaad ku saabsan horyaalka dalka, xitaa waqti ay qaadanayso ciyaartooydii kooxda inuu kala barto. ka waran xilli ciyaareedkiisa ugu horeeyay xagga hogaaminta kooxda rajadaad ka qabtaan inuu koob idiin keeno? waxaan usoo hormarnay waxay tahay horyaalku hadda noo dhamaaday inaan horey macallin ka keeno oon fasax la gelin. waxaa u sabab ah in uu ciyaartooydii kala barto. tartamo ayaa jira oon naadiga ka qayb geli doonto ugu horeeya tartan Confederation Cup iyo maxaa la yiraahdaa Star League iyo General Daoud. waxaan rajeynaynaa inuu intaas kooxda ku fahmi doono, kadibna oo liiga asigoo kooxda fahamsan oo la qabsan doono. wayahay goorma ayuu si rasmi ah tababarka kaga bilaabayaa garoonka tababarkaad ku qaadataan Munishibiyo ee ku yaala degmada Warta Nabadda? tababarka rasmiga wuxuu dib u waxaan bilaabay kooxda dib u bilaabi doontaa dhammaantood isbuuca soo socda insha Allah. fasax yaraan siinay oo horyaalka hadda dhamaaday. waxaan u rabnaa inaan u diyaar garowno safarka lagu soo aadan aan uga qayb gelino Confederation Cup. haddii aan kula kaftamo waxaa lagu arkaa mid ka mid ah gudoomiyaasha ugu xodxodashada badan xagga ciyaartooyda. ciyaartooy aad soo kordhinaysa waqtigan ma jirtaa Abuukar? dabcan waa lagu khasban yahay haddii oo horyaal dhammaado oo season cusub la gelayo waa lagu khasban yahay in ciyaartooy kooxda lagu soo biiriyo oo boosaskay u baahan tahay kooxdana waan aragnaa inaan boosaskaas daboolno waa ku khasbannahay insha Allah. waan rajeynaynaa in kooxda sanadka soo socdo ay bandhig fiican soo bandhigi doonto insha Allah. wayahay haddii su-aal kale aan sii raacsado, gudoomiye kooxdaadu 3 xilli aynu ka soo gudubnay kaalinta koowaad ee horyaalka ma aysan helin, adiguna waxa lagu tilmaamaa qof guuleed. bal ka waran 3 xilli iyo horyaal la'aanta iyo xilli ciyaareedada soo socda waxa aad rabtaan inaad samaysaan?
taariikhdeeda isboortiga intaan hogaaminahay naadigan seasonkii igu xumaa wuxuu ahaa seasonka hadda dhamaaday oo naadiga ku dhamaystay boodka shanaad labada season oo ka horreysana waa ogtahay maaragtay kaalinta labaad saddexda season ugu dambeysana kaalinta labaad aan galnay labana waa qaadnay waana ka maaragtay waxyaabaha igu dhaliyey inaan isbedel naadiga ku sameeyo taas ayaa sabab u ah waana sanadkan waxaan jeclahay inaan maaragtay naadiga guulihii lagu yaqiinay iyo safafka hore ee lagu yaqiinay kuwasadka looga bartay inaan dib ugu soo celiyaan ku dadaala insha allah. wata ugu dambeyn su-aal maada ayaynu ku soo xiraynaa waraysigeena taageerayaashu waxay hadal hayeen magaca Banaadir Sports Club markii aad ka guureyseen inuu ah magacaaduna si badan aad looga cabsado marka in xilli ciyaareedkii ugu horeeyay aad kooxda Munishibiya noqoteen in shanaad aad ka dhacdaan soo lama oran karayo nasiib xumadii ayaad idin raacday oo waxa taageerayaashu ay ka digayeen ayaa yimi. sida la socotid kubadda cagta waa cad iyo madow qofba nasiibkeeda marna cadaan baa helaysaa marna madow naadiga magaca muqdisho iyo magaca banaadir waa isku mid mana aaminsani in ay maaragtay magaca uu yahay laakiin dhaawacyo ciyaartooyda qaar soo gaaray iyo maaragtay culeysyo badan oo dhanka ciyaartooyda naga qabsaday taasaan u aaneynaa iyo maaragtay maamulku habacsanaan badan muujiyey waana ka raaligelinaya dhammaan taageerayaasha kooxda muqdisho kalaad khaladkan waxaa iskale oon maaragtay ugu aaneynayaa waa dhanka maamulka oo maaragtay aan aad uga gaabinay shaqooyinkeeni iyo maaragtay aan dhigasho badanaana gasha laakiin insha allahu tacaala raaligelinaan ka bixinaynaa wadadii lagu yaqiino kooxda waanu kusoo celinaynaa magaca macno ma samaynayo laakiin shaqadaa macno samaynayso dhaliisha waa inaan qofka maaragtay mas-uulka ay qaadataa haddii shaqadii oo maaragtay loo idmaday ee habacsanaan ku timaado mas-uuliyaddeeda waxaa iskale waxa weeyaan maamulka marka maamulka oo aniga aan ugu sarreeyo waxaan raaligelin bixinayaa dhammaan taageerayaasha naadiga guud ahaan waxaan rajaynaynaa insha allahu shaqadii ay nooga barteen inaan dib boodka ugu jirto. Abuukar Maxamed Sheekh gudoomiyaha kooxda dowladda hoose ee Xamar oo ka hadlaya macalinka cusub ee reer Tunisia shalay soo gaaray Muqdisho ay kooxdiisa la soo wareegtay